xisbiga talada haya ee dalka Zimbabwe ayaa yeeshay kulan ku saabsan wixii ay ka yeeli lahaayeen madaxweyne Robert Mugabe kadib markii la soo dhaafay xilligii ay u qabteen inuu iscasilo. xubin sare oo ka tirsan ZANU-PF ayaa sheegay in go'aan ay ku gaareen in ay soo galo joojiyaan Mr Mugabe maalinta talaadada si xilka looga qaado. khudbad telefishinka laga sii daayay xalay ayaa Robert Mugabe wax iscasilaada uusan ku sheegin. Cabdixaafid Caawil Ismaaciil ayaa ka waramaya. waxaa la gelayaa wajigii xigay ee dagaalka Mugabe waa dhinac xisbiguna dhinaca kale. I will preside over its processes. xalay ma aanu iscasilin sidii la filayay. hogaamiyayaasha xisbigu waxay u qabteen ilaa maanta waqtigii loo qabtay waa la dhaafay. xisbiga ZANU-PF hadda wuxuu isu diyaarinayaa hawshii ugu dambaysay. waxay isugu yeeleen dhammaan xildhibaanadoodii si ay uga wada hadlaan in la soo galo joojiyo madaxweynaha. marka arrintu waxa ay u wareegaysaa baarlamanka halkaasi oo dastuurku qaba 3 meelood 2 meel in xilka looga qaadi karo Mugabe. xildhibaanadu waxay u cuskan karaan inuu ku xadgudbay dastuurka ama uu gudan kari waayo shaqadiisii xagga maskaxda awgeed, laakiin ma kala cadda inta ay qaadan karto umana muuqato inuu madaxweynahani uu kubaddaasi cayaari karo. waxay ku xidhantahay sida degdeg ee baarlamaanku tallaabo u qaado. waxaa laga yaabaa inay maalmo qaato. quruxda arrintu waxa ay tahay in la marayo dastuurka qaybtiisa 97aad. waxaan u malaynayaa hadda inay tahay rajada keliya ee dalku madaxweynaha meesha kaga saari karo iyagoo cuskanaya qaybaha ka mida dastuurka. bannaanbaxyo waaweyn oo dalka ka dhacay ayaa ku guuldaraystay inay ka dhaadhiciyaan in hogaamiyahanu uu xilka ka dego. waana ay sii faafayaan. ardaydii jaamacadda ugu weyn ayaa hadda qaadacay imtixaanka. halgamayaashii dagaalka ayaa sheegay in ay iyaguna ay sii xoojin doonaan. Mugabe waa inaad tagtaa. waa in aad tagtaa. wakhtigaadii wuu dhammaaday. fadlan aqalka madaxtooyada isaga bax. waddankuna waa cusub ha u bilowdee. waxa uu ahaa toddobaad aan horay loo arkin halkan. damaca lagu doonayo in xilka looga qaado si nidaamsan ayaa tartiib ku socda, laakiin in hal degdeg ah loo helo khilaafkan waxa ay u muuqataa inay adag tahay.